for a while now. It's been a while, man. When are you off? Inshallah, the Ramadan to. Friday the social hotel we can I'm off like 2 weeks. 2 weeks kaasa la isqaban doonaa. Ajaladdan runtii waxaan u duubayaa waxaan kala qayb qaadanayaa walaalahayga warwarsan ee wadankii ka warwarsan ee heladoodii ka warwarsan aniga ehelkaygii baan ka warwarsanahay nin walba ilaahay baa dilaya nin walba ilaahay baa tiis haya nin walba markuu ilaahay ugu talagalay buu dhimanaya dadaalkana iyagun baa laga rabaa hadday dadaalaan intaa ay dadaalayaan ilaahay uu ku caawin doonaa insha Allah waxaa laydinka baahan yahay inaad u diyaar garowdaan inuu dhaqdhaqaaqiinu aad u yaraado muddo ilaa bila haddaanu ka badanba wadankii kaga horreeyay xanuunka waxbuu ka faa'iiday marka waa inay isku daydaan in wadamada uu cudurku idinkaga horreeyey aa wax ka faa'iidaan oo wixii fiicnaa iyagoo shaqeeyey aa idinkuna ku dhaqantaan waxyaabaa ugu waaweyn oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in si bulsho ah loola dhaqmo oo loo wajaho xanuunkan oo sharciyada loo dhigay meelaha ay dadku isugu yimaadaan ay ka mid yihiin basaska maqaaxiyaha iyo dukaamada waaweyn ee laga adeegto sharciyada loo dhigay waa in lagu dhaqmo haddii lagu yidhi qofka 2 mitir u jirso waa inaad 2 mitir u jirto aanad uga soo dhowaan haddii la yidhi 5 qof baa dukaanka geli kara 5 qof wax ka badan waa inaanay dukaankii gelin waa sharcigan lagu sheegayo waxa hirgeliya waa shacabka wadamada badankooda waxaa hoos u riday xawligii uu ka socday ka joojiyey dadkii baa ku dhaqmaya sharciyadii oo dadkii baa wixii la yidhi ku dhaqmaya 2 mitir bay isu jirayaan qofka kale ay sharci ku baraarujinayaan ilaahay ha u gargaaro ilaahay qof walba ha u gargaaro idinkuna dee u gargaara oo nin walba qofkii aad u gargaari karto u gargaar nin walba waxaad qof gaadhsiin karta gaadhsii iscaawin baa loo baahan yahay dawo looma hayo marka sida kaliyeedaan isugu sii daynin idinku waa inaa idinku shacab ahaan waa inaa la dagaalantaan idinkoo 1 unit ah hay'adaha caafimaadka iyo dawladdu hadday wax ku taliyaan dee dadku dhammaan ku dhaqaaqaan haddaanay ku wada dhaqaaqin oo wixba riwaayad laga dhigo laga qosqoslo hadhowna waxaa noqonaysaa un dee hosbitaaladina way buuxsamayaan ta ugu weyn laakiin waxa weyaan mas-uuliyad baa qof walba kaa saaran oo wadankaaga iyo dadkaaga iyo reerkaaga iyo ehelkaaga iyo deriskaaga intaba mas-uuliyad baa kaa saaran mar kasta oo aad wax taabato ama dibadda u baxdo waa inaad saabuun isticmaashid ilaahayna ha idinla garab galo ilaahay ha idinka duwo ilaahay baanu ka baryaynaa inaanu wadankii siduu u galay wadamadan aanu arkayno aanu ka dhigin aamiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته